الرحيم sida afayeenka ciidanka booliisku sheegay galabta halkan 5 daqiiqo waxa ay kooxaha argagixisada ku soo qaadeen hotelkan oo dad Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo jecel dalkooda inay horumariyaan halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliiska si wada jira afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hotelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyay aad iyo aad baan rabnaa anoo ku hadlaaya ka gobol banaadir ahaan annaga iyo maamulka gobolka inaan uga mahad celino ciidanka sida wanaagsan oo markiiba ay uga jawaabeen gurmadka degdegga oo shacabka ay u fidiyeen argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalado adag soo maray u soo dhabar adeegay xaalado intaan ka adag waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay inay yaraayeen weeraro noocan oo kale inay fuliyaan ciidanku mar walba kuwa intaan ka badanna waa badbaadiyaan waa ogtihiin oo muddooyinkii u dambeeyay ma jirin weerar noocan oo kale ah runtiina waxaan uga tacsiyanayaa sida hadda noo sheegay dhimashadu waa 13 qof oo ay ku jiraan 5 qof oo kamid ah yihiin nimankii weerarka soo qaado argagixisada ahaa iyo dhaawac 13 ah oo shacab ah dhaawacyadana runtii isbitaaladan ku booqanay oo maamulka gobolka Banaadir booqday wixii aan la qaban karno gurmad ahna diyaar ah u nahay inaan la sameeyno laakiin hal mid aan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa waxay tahay cadowgu inuusan wax naxariis ah u hayn dadka magaaladan degan ayaguna ay u diyaar garoobaan sidii mar walba dhici jirtay inay isdifaacaan annagu hadda waxaan ku jirnaa waxay tahay waa isdifaac mar waa dhacaysa oo nalaga soo hoos baxo oo laamaha amniga iyo ayagoo dadaal ku jira ay mar wax ka soo hoos baxaan laakiin sida ogtihiin qaraxyadan waxay ahaan jireen mid routine bil gudaheeda waxa dhici jirta 5 qarax oo noocan 5 meel oo la mid ah la weerari jiray marka hadda annagu waxaan ku jirnaa dadaal ciidanka booliiska iyo laamaha amnigana waxaan uga mahad celinayaa intii uga dhimatay ayaga laftirkoodu dagaal ay ku jireen waa uga tacsiyeenayaa guud ahaan shacabka magaaladan deganna waa uga tacsiyeenaa gaar ahaan ganacsatadii hotelkan lahayd oo sida quruxda badan u maalgashatayna waxaan u soo jeedinaynaa inaysan ka niyad jabin niyaddii ay dalkooda u hayeen